kulanti wacan ku soo dhawaada barnaamij wareedka Hiil Walaal oo aan idinku soo gudbino wararka iyo warbixinada la xiriira waxqabadka howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ku taageero dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed. wararka aan barnaamijkan idinku haynana waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay lagu caleema saaray magaalada Muqdisho. Soomaaliya oo ku dhawaaqday in abaartu ay tahay masiibo qaran oo ku habsatay dalka iyo saraakiisha AMISOM oo lagu booriyay in ay si dhow ula shaqeeyaan shacabka si loo dhiirigeliyo nabadda iyo horumarka. wararkaas iyo warar kaleba la soco goordhow. hogaamiyaasha gobolka oo goobjoog ka ahaa caleemasaarka madaxweyne Farmaajo. madaxweynaha sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa lagu caleema saaray xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen 1200 oo marti ah oo ay ku jireen madaxweynayaal, ra'iisul wasaare iyo wakiilada beesha caalamka. khudbadiisa oo ka koobneed 25 daqiiqo ayna garab taagnaayeen labadii madaxweyne ee hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayuu ku ballan qaaday in uu dib u soo celin doono sharaftii Soomaaliya. madaxweynaha waxa uu xusay in uu xoojin doono hay'adaha amniga uuna wax ka qaban doono abaarta ba'an ee ka jirta dalka, wuxuuna ku booriyay bulshada Soomaaliyeed in ay taageeraan waxqabadka dawladdiisa. waxaan ballan qaadayaa sharafkii iyo ciisadii iyo karaamadii Soomaaliya inaan soo celiyo. caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaalla waxaa ka mid ah amni xumo baahsan, dhibaatooyin bini'aadanimo sida abaaraha haatan ka jira dalka, dhammaystirka dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed, xoojinta sarreynta sharciga iyo nidaamka cadaaladda, dib u soo celinta kalsoonida ay shacabka ku qabaan dawladooda, yareynta saboolnimada iyo fakhriga ragaadiyay shacabka Soomaaliyeed. xafladda waxaa ka soo qayb galay madaxweynayaasha Kenya Uhuru Kenyatta, Djibouti Ismaaciil Cumar Geele, ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn, madaxweyne ku-xigeenka waddanka Suudaan Ibrahim Maxamuud iyo marti kale. martida kale waxaa ka mid ahaa wakiilka midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Francisca Mader, wakiilka qaramada midoobay Michael Keating, ergeyga midowga Yurub ee bariga Afrika Alexandra Rondos iyo marti sharaf kale. madaxweyne Farmaajo wuxuu ammaanay taageerada beesha caalamka gaar ahaan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM, kaalinta ay ka ciyaareen xasilinta Soomaaliya iyo abuurista jawi lagu qaban karo doorashooyin ka qabsooma gudaha dalka Soomaaliya. sidoo kale waxaan hanaanka doorashada Soomaaliya hiil iyo hooba la garab istaagay beesha caalamka oo ay ugu horeeyaan ciidanka nabad ilaalinta AMISOM oo sugay amniga goobaha doorashooyinka iyo deeq-bixiyaasha caalamka. iyagana doorkii ay ka qaateen waxaan ugu haynaa abaal weyn. wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Francisca Mader ayaa ka hadlay kaalinta ay dawladda Soomaaliya ka ciyaartay halgankii xoreynta ee qaaradda Afrika iyo dhismaha ururkii midowga Afrika oo hadda loo yaqaan midowga Afrika, wuxuuna ballan qaaday taageerada ay siin doonaan dawladda haatan jirta. The African Union is with you, Mr. President, as you take over your responsibilities, and will remain by your side as you confront each of the many challenges currently afflicting your people. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku ammaanay dadka Soomaaliyeed qabashada doorashooyin lagu guuleystay, wuxuuna ballan qaaday wada shaqeyn xoogan oo labada dal dhex marta. Today, I wish to reaffirm the commitment of my administration to continue building on the sound bilateral relations that exists between our two nations and our two peoples. madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa ka sheekeeyay walaalnimada iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya labada dal, wuxuuna carabka ku adkeeyay in dalkiisa ay ka go'an tahay in ay wax walba u huraan sidii Soomaaliya ay mar kale cagaheeda isugu taagi lahayd. sidii awal baan u joogaynay baan u joognaa. madaxweynaha cusubna si gaar ah ayaan doonaynaa inaan ugu muujino kalgacal iyo wada shaqayn iyo
wixii annagu aan ku dhanno inaan la garab taagannahay muruq iyo maal intaba waxa aan jecelnahay Soomaaliya oo iyadu nafteeda heshiis la waxaan jecelnahay Soomaaliya oo hawsheedii regionka ama gobolka sidii ay u gudan jirtay u gudata waxaan jecelnahay iyada oo walaal la ah caalamka islaamka iyo carabta iyo guud ahaan regionkeena waxaan jecelnahay cizigeygii iyo sharafteedii in ma garanaysaa ay yeelato Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa ku ammaanay dadka Soomaaliyeed in ay qabteen doorashooyin si nabad ah ku dhacay wuxuuna sheegay in tani ay tusaale u noqon doonto dalalka kale ee qaaradda Afrika. The people of Somalia have made history and set a great example to countries in conflict and countries emerging out of conflict in the continent and elsewhere. This is a clear indication that none other than Somalis can decide on their own fate. caleemasaarka madaxweyne Farmaajo waxa uu ku soo beegmay 2 toddobaad kadib markii uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee 8 bishii February ee sanadkan ka dhacday magaalada Muqdisho. balse caleemasaarka ka hor waxa uu munaasabad xil wareejin ah xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho kula qaatay madaxweynaha xilka banaynaya Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweyne Farmaajo waxa uu si degdeg ah caleemasaarkiisa kadib xilka ra'iisul wasaaraha ugu magacaabay Xasan Cali Khayre oo horey uga mid ahaa madaxda shirkad shidaal wuxuuna ugu baaqay dadka Soomaaliyeed in ay taageeraan. Soomaaliya waxa ay ku dhawaaqday in abaartu ay tahay masiibo qaran. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in abaarta ay baabi'isay qaybo badan oo Soomaaliya ah sidaas darteedna ay tahay masiibo qaran wuxuuna ugu baaqay beesha caalamka in ay si degdeg ah uga soo jawaabaan codsiga qaramada midoobay ee ah deeqda 825 milyan oo dollar oo lagu gargaari doono dadka ay abaaraha saameeyeen. madaxweynaha oo ka qudbeynaya kulan heer sare ah oo looga hadlayay wax ka qabashada abaaraha oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ku tilmaamay abaarta masiibo qaran oo baabi'isay dalaga iyo xoolaha oo ah hantida ugu weyn oo ay shacabka Soomaaliyeed leeyihiin. But there is no greater threat than famine as its worst weapon of mass destruction as we have seen most recently in 2012. Therefore, preventing famine should be our top priority. madaxweyne Farmaajo wuxuu shaaciyay in toddobaadyada soo socda uu isticmaali doono dariiq kasta si uu u muujiyo xaaladda abaareed ee Soomaaliya ay wajahayso oo goobaha uu ka sheegi doonana ay ka mid tahay shirka heerka caalami ee bisha May lagu qaban doono magaalada London ee dalkaas Ingiriiska. dhinaceeda ku-xigeenka ergeyga gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Lida Wanyota ayaa ballan qaaday in AMISOM ay taageeri doonto dhammaan dadka Soomaalida ah ee u baahan kaalmada si ka duwan tii dhacday 2011-2012 markaas oo dalku wajahay xaalad aad u adag. So we have an opportunity as AMISOM and other associated agencies to be able to reach out to people that are in need than was the case in 2011. And therefore, our voice today is to raise to the occasion and stand by Somalia at a time of reaching out access to people that are in dire need. Gudoomiyaha guddiga heer qaran ee ka jawaabista abaarta Maxamed Cumar Carte ayaa sheegay in ugu yaraan 60% xoolihii dadku ay dhaqanayeen ay abaarta hadda jirta baabi'isay. We need to act decisively, we need to act massively, and we need to act now if we are to prevent a repeat of the awful scenes of 2011-2012 when more than 250,000 people died. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xusay in inta badan dadku ay abaaraha waxyeeleeyeen ay ku nool yihiin goobaha ay maamulaan maleeshiyaadka shabaab ayna adag tahay in la gaaro wuxuuna ku baaqay in la sameeyo dadaalo dheeraad ah si loo gaaro dadkaasi ay abaarta ku dhufatay. aan siino awoodda iyo priority-ga inaan dadkan dawladoodu ay gaadho la xoreeyo wax la gaarsiin karay.
gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in caasimadda Soomaaliya aysan ka badbaadin xaaladda abaareed ee sii xumaanaysa wuxuuna sheegay in magaalada Muqdisho ay horay u martigelisay dadkii reer guuraaga ahaa ee ay abaartu saameysay barakaca dambe oo hadda xilligan la soo gudboonaada magaalada Muqdisho wuxuu gaarayaa ilaa iminka sida tirakoobka aan ku hayno 2,000 oo qoys oo qoyskiiba uu ka kooban yahay tiro ugu yaraan 7 ilaa 8 ruux uu ka kooban yahay. intii lagu guda jiray kulanka looga hadlaya xaaladda abaareed ee dalka Soomaaliya diblomaasiyiinta shisheeye hay'adaha gudaha iyo caalamiga ahba waxa ay ballan qaadeen in ka badan 400 oo milyan oo dollar lagu caawin doono Soomaaliya dhawaan warbixinta waaxda la socoshada raashinka iyo nafaqada iyo ka hortagida xaaladaha macaluusha ayaa sheegtay in tirada dadka Soomaaliyeed ee kaalmada u baahan ay haatan gaartay 6.2 milyan oo qof oo u dhiganta tirada kala bar dadka Soomaaliyeed. ciidamada AMISOM ee ku sugan baraha kala duwan ee Soomaaliya ku leeyihiin ayaa loogu baaqay in ay si dhow ula shaqeeyaan dadka si loo horumariyo nabadda iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya. tababar hagid ah oo socday muddo 2 maalin ah loogana hadlayay arrimaha jinsiga oo la siiyay saraakiisha ciidamada dhawaan la keenay qaybta 5aad ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa lagu booriyay saraakiisha inay si dhow ula shaqeeyaan shacabka deegaanada ay joogaan si loo horumariyo nabadda iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha. kusimaha madaxa shaqaalaha iyo madaxa ilaalinta xuquuqda aadanaha Adebayo Krim oo ka hadlay xiritaankii tababarka ayaa u sheegay saraakiisha in ay ku adkeeyaan ciidamada qaybahooda waajibaadka ka saaran ilaalinta sharciyada caalamiga ah. The Protection and Human Rights Unit and Gender Office of AMISOM has the responsibility to ensure that AMISOM discharges its activities in a way that are consistent with our obligations under international law and all that. And we have presence in the sectors, but unfortunately security considerations will not allow us to deploy civilians there. saraakiisha baraha ciidamada ee mas'uulka ka ahaan doona arrimaha jinsiga waxaa laga filayaa in ay horseed u noqdaan ka hortagidda ka faa'iideysiga galmada iyo xadgudubyada kale ee xuquuqda aadanaha ka dhanka ah iyo in ay wakiilo AMISOM uga ahaadaan dadweynaha Soomaaliyeed dhexdooda. ka qaybgalayaasha tababarka ayaa muujiyay sida ay ugu qanacsan yihiin waxa la baray waxayna ballan qaadeen in ay adeegsan doonaan wixii ay ka barteen tababarkan. The knowledge I have acquired here and the knowledge the others have acquired, we shall be able to use it because in the military we are always anticipating tasks. As this mission is coming to a drawdown, we shall be able to help our leaders in planning as they focus on the gender issues of finishing the mandate. I will use it to educate other ladies in the sector, to tell them the importance of the matters pertaining gender, and then to tell them on how they're supposed to live or to interact or what they're supposed to do while they're in the operation area. ka qaybgalayaasha oo ka kala socday dalalka ciidamada ugu yabo howlgalka Soomaaliya waxaa shahaadooyin guddoonsiiyay kusimaha madaxa shaqaalaha oo ahaa marti sharafta lagu casuumay tababarkaasi. AMISOM oo gacan ka geysan doonta dhismaha xarun military oo ciidamada qaranka Soomaaliya ay leeyihiin. taliyaha ciidamada howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya General Cismaan Nuur Subagle ayaa hogaaminayay wafdi saraakiil ah oo gaaray dowlad goboleedka Koonfur Galbeed si ay u soo hubiyaan goobta laga dhisayo xarun lagu tababaro ciidamada qaranka Soomaaliyeed. wafdiga oo uu ku jiray madaxa shaqaalaha AMISOM Abrih Tasfay ayaa la kulmay taliyaha aagga 3aad ee ciidamada Soomaaliyeed General Ibrahim Yarow iyo ku-xigeenka taliyaha cutub Colonel Wanyo Abete. wuxuu ahaa iskuul meesha laga dhisayo inaan soo eego annagiyo qoladii kharashka bixinaysay baan isla soconay dabeedna meel baan isku raacnay waxaan rajaynayaa inay maamulada sarina ay ogolaani doonaan waxaan isku raacnay in saraakiisha militariga ay aqbaleen goob ku habboon xarunta ciidamada waxayna muujiyeen in ay si weyn ugu kalsoon yihiin in maamulka deegaanka ay ansixin doonaan goobta la xushay. xerada waxaa lagu tababarayaa Soomaali iyo Soomaaliya loo dhisayaa Soomaali baana ku tababaranaysa si ciidamada
aqoontooda iyo kartidooda kor loogu qaado si ay nabadgelyada iyo security-ga waddanka ay ula wareegaan muddo sanad ama sanad iyo badha. dhismaha xaruntan tababar waxay ahaan doontaa mid muhiim u ah Soomaaliya oo u baahan in ay hesho ciidamo badan oo xoojiya amniga lagana dhigo ciidamada qaranka kuwa awooda in ay qaadaan amniga dalka kadib marka ciidamada AMISOM ay baxaan. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamij wareedka Hiil Walaal oo aan idinku soo gudbinay wararka iyo warbixinada la xiriira waxqabadka howlgalka Midowga Afrika ay ku taageeraan dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed.